بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب soo dhawaada waxaan rabnaa inaan soo gudbino casharadii taxanaha ahaa ee shabakadda Geedi Suraysta Official. Casharkan labaad oo aan soo gudbin doono waxaa iska leh casharada Form 2-ga. Waa cutubka saddexaad. Ciwaanka cutubkaas waa Tixda Soomaalida. Layliga labaad oo Form 2-ga aan u duubno buu noqonayaa. Bogga 70aad ilaa 72 baa layliga kan buuggaaga ka tegaysaa. Kadibna waxaad ka shaqaynaysaa layligaas qaybihiisa kala duwan. Fallaarta koowaad waxay leedahay isku aadi erayadan iyo macnahooda. Waxa la rabaa marka ardaygu in uu markaa ereyga iyo macnihiisa uu isla doono. Halka kana erayadaad ka akhrinaysaa sidii horay aad soo baratay. Dhankana ereyga macnihiisii ayaa yaal. Marka lambarka ayaad adeegsanaysaa haddii Ilaahay yiraahdo. Tusaale ahaan halkan waxaynu soo qaadanay Jalabute. Jalabute halkan waxaa ku qoran marka shir aan la fadhiyin ee dadku yoonsan yihiin. Jalabute marka halkan lambarka afraad baa qaadaysaa waxaa dhigaysaa halkaa. Waa xabadda tusaalaha ah wey. Inta kale marka adiga waxaa la rabaa inaad sidaas oo kale uga shaqaysid haddii Ilaahay yiraahdo. Xabadda afraad halkaasaan dhignay. Qaabkaas oo kale waxaa la rabaa inaad kuwa kalena aad ardayow uga shaqaysid haddii Ilaahay yiraahdo. Waayo aan sii lugayno. Qaybta ku xigta oo fallaartan waxay noqonaysaa iyaduna haddii Ilaahay yiraahdo qaabkan oo kale u samaysan tahay. Waa fallaarta koowaad. Fallaartan marka maxay layna ka rabaa inaynu ka warcelino weydiimaha halkan ku qoran. Weydiimahaas waxaa ka mid ah su-aasha koowaad. Maxay ku kala duwan yihiin tix iyo tiraab? Tix iyo tiraab afka marka laga hadlayo 3 qayb jeer baa la qaybiyaa. Marka dhanka suugaanta laga hadlayo waxaa la yiraahdaa tix iyo tiraab. Marka dhanka hadalka caadiga ah ee dadku ay ku hadlaan ee lahjadaha kala duwan lahna waa may iyo maxaa tiri. Marka af maldaha la joogo ama sarbeebahana muxuu noqdaa maldah iyo sandah buu noqdaa. Hadda adiga marka wax lagu weydiiyo labadan waxay ku kala duwan yihiin. Lambarka labaad wuxuu ku leeyahay waa maxay suugaan? Suugaan baa qeexaysaa. Lambarka saddexaad sheeg macnayaasha suugaanta. Suugaanta markaad qeexdo waxay leedahay macnayaal badan oo aad soo baratay. Macnayaashaas ayaad qoraysaa. 2 sheeg qaybaha suugaanta. Suugaanta qaybaheeda baa sheegaysaa. Haday 4 yihiin iyo haday 2 yihiin halkaa ku qoran. Su-aasha shanaad waxay ku leedahay waa maxay maanso? Maanso ayaad qeexaysaa. Horey waxaa usoo qeexday suugaan, haddana waxaad qeexaysaa maanso. Isla lambarka 6aad waxay ku leedahay sheeg qaybaha maansada. Maansada aad qeexday waxay leedahay qaybaheeda sheegaysaa. Su-aasha 7aad oo u dambaysa qaybtan layliga waxaad kala saaraysaa mahmaah iyo murti. Murti iyo mahmaah noo kala sheeg. bal waxa aad ku soo baratay inaad mid walba gaarkooda u qeexdo. Aan hore u sii lugayno. Layliga qaybtan ku xigta waxay leedahay fallaarta saddexaad. Goobo geli jawaabta saxda ah. Ardayga marka maxaa laga rabaa? Ardayga waxaa laga rabaa inuu akhriyo lambarka kadib 4 xaraf oo la kala dooranayo akhrido weedha aad soo akhriday xarafka ku habboon marka aad goobo gelisid. Tusaale hadda haddaynu soo qaadano waxaynu dhahaynaa waxaa la yidhi lakab xaleefsan oo dufan ah oo caanaha dhayda ah dusha ka fuula. Caanaha marka la dhigo kadib oo ay xoor dhacsadaan lakab dufan leh oo caanaha ku samaysma ama ay caanuhu sameeyaan maxaa la yiraahdaa baa layidhi. Xarafkan ee waxaa la yidhi waa xanto. Xarafka ku xigo ba waxaa la yidhi labeen. Xarafka ca oo ku xiga waxaa la yidhi xanto. Xarafka da oo u dambeeyana waa xumbo. Haddaba su-aashaas saxda ahi maxay noqonaysaa? Waxay noqonaysaa labeen. Haddaynu halkaas markaa taa ka dooran maxay noqotay? Labeen bay noqotay. Adigana maxaa lagaa rabaa? Waxaa lagaa rabaa inaad inta kale iyagana qaabkaas oo kale aad uga shaqaysid haddii Ilaahay yiraahdo. Marka waa 10. 10kaas waa goobo geli. 10kaas goobo gelida ah ayaa waxaa lagaa rabaa inaad ka shaqaysid haddii Ilaahay yiraahdo.
kadib markii aad layligaaga dhammayso si casharadu kuugu soo dhacaan saaxiibadaada kalena ay u gaaraan channelka like saar subscribe saar share waana share garaynaysaa si aad asxaabtaadana ula wadaagto adiga laftigaaga casharada dambe kuugu soo dhacaan haddii ilaahay kuu ron yahay ustaadkana aad halkaas ugu taageerto haddii ilaahay aad ayaad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu